ولي ما كسو gaartay sheekada Lexus waa company baabuur soo saara dabcan soo saara baabuur raaxo sidee ku timid sheekadiisa in la aas-aaso mid kamid ah baabuurta raaxada ee loogu jecel yahay caalamka ku soo dhaw channelka magacayga waa Gamaandid haddii halkan aad ku cusub tahay subscribe noo saar haddaad hore noola joogtay waa ku mahadsan tahay asxaabta nagu soo biirtayna waa u mahad celinaya muddo ayaan ka maqnaa channelka balse ugu dambeyn waan soo laabtay haddaba sidee ku timid sheekada Lexus waxa aasaasay shirkadda Toyota oo aad dhamaantiin wada garanaysaan Toyotana waxa looga bartay baabuur tayo leh oo awood leh oo dabcan adkaysi badan Toyota waxay sameyn jirtay waxay tahay in baabuurteeda ay ku sameysay Japan isla markaana ay u dhoofiso Mareykanka balse qofka Ameerikaanka ah kaliya wuxuu helayay Toyota wuxuu arkayay baabuur tayo leh oo adkaysi leh balse muusan arkaynin ama dareemeynin raaxo sida baabuurta raaxada oo kale sidaas ogeedna guddiga Toyota ayaa shiray maalmaha kamid ah waxayna ka shireen sidii wax uga bedeli lahaayeen kambanigooda waxayna u haysteen in dhibaatada haysata inay tahay qiimaha ay iibinayaan baabuurtooda sidii uu shirka u socday ay u falanqeynayeen dabcan sidii wax uga bedeli lahaayeen shirkadooda waxaa gacanta taagtay qof kamid ah dadkii joogay qolka oo yiri dabcan dhibkana haysta ma ahan qiimaha ee waa loogada inaan bedelno ama brand wax la yiraahdo in brandiga aan wax ka bedelno ayaa loo baahan yahay ee qiimaha ma ahan ba dhibkan haysta arintii ayay falanqeeyeen waxay dhaheen waxaan u baahannahay baabuur raaxo oo dabcan loogada Toyota aan ahayn looga kala saaran tahay sideen ku sameyn karnaa midkaas baabuurka waxa lagu sameynayaa Japan ayay yiraahdeen waxaana loo dhoofinayaa dabcan Mareykanka waana noocee baabuurka waa baabuur raaxo ama luxury wax la yiraahdo sidaas ogeedna magac sidee loogu helaa ayaa la isweydiiyay magacana waxay ka keeneen baabuurka noociisa oo ah luxury iyo export oo ah dhoofintii iyo halka loo dhoofinayay ee ah Mareykanka sidaasina waxay ku noqonaysaa Lexus sidaasina waxay ku sameeyeen baabuur raaxo oo dabcan noqday mid ka saddexaad ee loogu iibka badan yahay ariga Mareykanka Lexus maanta badankiin waa taqaanaan balse waxa macquul ah inaysan garanaynin cidda iska leh iyo cidda ka dambaysa balse waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iiday oo kuma santahay daawashada muuqaalka halkan haddii aad soo gaartay channelka subscribe saaro si aysan ku dhaafin muuqaaladan kuwa lamid ah asxaabtaana la share gare wixii fikir aad noo haysidna comment-ga noogu la wadaag muuqaalka like saar intaan ku kulmayna muuqaalkan mid ka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo